ku sheegeen inay yihiin dadka ay ka qabeen tabashada waxaan rabnaa inaan cadeyno dadka tabashada laga qabo waa dad Soomaaliyeed waa dhalinyaradeeni hablo iyo wiilba leh waxa looga qabaanay ma aha inay shaqaale dawladeed yihiin ama hay'adda nabadgelyada u shaqeeyaan ama ay taageero qof u yihiin gooni ah musharaxiinta kamid ah waxaasoo dhan waxay sal u yihiin inay dhici karin cadaalad dhici karin doorasho cadaaladana aysan dhici karin maadaama dad dawladda u shaqeeyay ay yihiin musharax dawladda ka socdo madaxweynaha xilkiisa dhamaadayna musharaxiinta uu kamid yahay oo ilaa hadda uusan sheegin meel uga tanaasulay musharaxnimada dawladdana hadda asaga ay u shaqeyso maadaama madaxweynaheedii xilka dhamaaday uu yahay tuuggaas keenaya shaqaale dawladeed guddi doorasho lagu daro ama kuwa nabadgelyada u shaqeeya ama dad la og yahay inay taageeraan asaga taageeraan marka annaga dadkaas aan gudbinay waxaan la yaabna marka waxay tahay in aan maqalno waa la kala shaandheeyay waa la turxaan bixiyay waa la sameeyay hadda annaga waxaan sugaynay waxay ahayd qaabka turxaan bixinta wadada loo maraayo processka daliilaha iyo cadeymaha kulli in la isla wadaago ay ahayd waxa aan sugaynay laakiin awalba xukuumadda ayaga soo magacawday guddiga aan haysano ayaga soo magacawday ra'iisul wasaaraha dekreeto ku soo saaray marka xukuumadda ayada uu kaliya inay qaado cabashadii in ayada ana gadistay wixii jiray in ayada wax sameeyso suuragal ma aha oo inay tixgelisaa dadka ra'yiga ka qaba oo talada ka qaba oo arintida kale waa inay ka tixgelisaa anaga kaliya maaha guddoonka labada aqal baarlamaanka iyo aqalka sarena dad bay cabashooyin ka keeneen marka yaa lagala hadlay processkee loo maray abraaca loo maray muxuu yahay waxa in la saxo waxaasoo dhan mugdiya ku jiro marka annaga waxaan daba taaganahay 4 sanana aan daba taagnayn dalkan inaan majlis dimuqraadiyadda aan leexinin oo wax kasta ay daafurnaan iyo si cad oo transparent ah oo hufnaan leh ay u dhacaan waa la socotaan doorashooyinka ka dhacay Soomaaliland oo si nabada ku dhamaaday oo xisbigii talada hayay laga adkaado lagu guuleystay baarlamaanka maxay ku dhacday mucaaradka iyo xukuumadda markii hore waxay ka wada hadleen guddiga doorashooyinka qaabka registration ku dhacay qaabka codeynta u dhacayso wax la isla og yahay lagu tagay saasa waxay keentay natiijo la isla og yahay oo lagu wada qanacsan yahay inay soo baxdo